Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa barnaamijkeennii ma ogtahay qaybtiisii 7. Ma ogtahay in waddanka Shiinuhu 2012 soo saaray sharciga u samafalka waalidka, taasoo u saamaxaysa waalidku inuu ashkateeyo carruurtiisa aan soo booqan. Cajiib alcajiib, halka innagana diinteenna suubaniina farayso. Ma ogtahay in dhakhtarkii ugu horreeyay ee sameeyey qalliin uu ahaa caalimkii muslimka ahaa ee la odhan jiray Abulqaasim As-Sahraawi? Ma ogtahay in libaaxu ka baqo codka diigga? Ma ogtahay in dowladdii ugu horreysay ee dirta dayax-gacmeed ay ahayd dowladdii Midowgii Sofiyeetka? Ma ogtahay in habka indhoolayaashu wax ku akhriyaan la yidhaahdo Lewis Burial? Mise ma ogtahay inuu isla habkan sameeyey nin indhoole ahi? Ma ogtahay in dadka jecel midabka casi ay yihiin kuwo dabeecad ahaan isla weyn? Ma ogtahay in xayawaanka diinku noolaan karo biyo iyo cunto la'aan muddo 20 casho ah? Ma ogtahay in beer xayawaaneeddii ugu horreysay ee caalamka laga dhisay magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska sanadkii 1793? Ma ogtahay in waddanka Indonesia uu ka kooban yahay 13,000 oo jasiiradood, isla markaana uu yahay halka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ee dal qura ku wada nool, xornimadiisana uu qaatay sanadkii 1947? Ma ogtahay in fiidmeerta iyo nibiriga dhasha ah aanu midkoodna lahayn indho, balse ay ku socdaalaan jabaqda soo noqoshadeeda ama dayaanka, taas oo u sahasha inay wax ugaadhsadaan? Ma ogtahay in ninkii koowaad ee sameeyey leydhka uu ahaa Thomas Alva Edison oo dhalasho ahaan Maraykan ahaa? Edison markii uu ku jiray hawshan waxaa la sheegaa inuu guuldaraystay 999 jeer oo uu guulaystay markii 1000.